وشذي ما يكرر صار كذا دمله أنا وايد ملي بي بي زياله يا ودوم وحش ما عايش فرحان انا اساسا اسكتكم شقيني يا اخي معي خلاص صحيح وكم داعي لوق مرحن هذيك والله محلوك ما حلك الأوريال صحيح ولوك تنكسر وراوتها سوق كم تنشر بالعينيو مش ابو قرنت هذه محل هذيك هذه انت لو ودي راف هذه اوكي داعي ما تكون جقي غيرتوا مع سنتين ما واضح ما علينا تشين شيء ما معرف ما أنا بحني جدا لو مش ذي كذا لو مش كذا بوشرة اوكي لا فاهم الميكروفون هذا اوكي وايد هي غيرتوا مع سنتين وبلعبنا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم دولة فدرالك سوماليا قرارك دولة فدرالك سوماليا ku aadan xadgudubka dowladda Itoobiya ee gobolnimada Soomaaliya golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya shirkiisa aan caadiga ahayn ee saaka oo labada bisha January 2024 uu qabtay uuna shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre waxay soo saareen qaraar ku saabsan xadgudubka dowladda Itoobiya ee gobolnimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya markii ay arkeen goluhu qodobka koowaad faqradihiisa koowaad iyo labaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee dhigaya in Soomaaliya ay tahay jamhuuriyad federaal ah oo dimuqraadi ah ayna gobolnimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay tahay laguma xadgudbaan markii ay arkeen qodobka toddobaad faqradiisa koowaad ee dastuurka oo xeerinaya gobolnimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya kaas oo koobaya dhulka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo idil oo ay ku jiraan bariga badaha jasiiradaha iyo uurkooda hoose hawadooda sare iyo geeyi qaaradeedka dhul iyo biyo goboleed kasta oo ku soo biira Jamhuuriyadda Soomaaliya si waafaqsan sharci baarlamaanka qaranku uu ansixiyo markii ay arkeen qodobka 53 iyo 54 ee dastuurka oo siinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya xaq awood ee gelista heshiisyo caalami ah gaar ahaan arrimaha la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalaha difaaca iyo amniga markii golaha wasiiradu ay arkeen qodobka 51 faqradiisa afraad ee dastuurka oo dhigaya dhammaan heerarka dowladda waxa waajib ku ah in ay u hoggaansanaadaan dastuurka dalka iyadoo aan heerna isa siinayn awood ka baxsan kuwa dastuurku uu siiyey markii ay arkeen golaha wasiiradu qodobka labaad faqradda afraad ee axdiga qaramada midoobay ee ku saabsan laguma xadgudbaannimada madax bannaanida siyaasadeed iyo midnimada dhuleed ee dal iyo qaraarka golaha guud ee qaramada midoobay oo tirsigiisu yahay 26 oo xeerinayay dalna uma isticmaali karo in uu dhaqaale ahaan siyaasad ahaan ciidan ahaan iyo ficil kasta oo ku khasbaya dal kale in uu maquuniyo xuquuqdiisa madax bannaanida si looga faa'iideysto markii ay arkeen golaha wasiiradu mabaadi'da sugaya xurmada gobonnimada iyo midnimada geyiga dalalka Afrika ee lagu xeeriyay axdiga ururka midowga Afrika oo AU iyo xeerka dhismaha midowga Afrika AU ee 2002 iyo midka urur goboleedka IGAD golaha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa ay soo saareen qaraarka soo socda
dowladda federaalka Soomaaliya waxay si adag u diidaysaa isla markaana si cad ay uga soo horjeedaa tallaabada guracan ee dowladda federaalka Itoobiya ay ku sheegtay in ay si sharci darro ah heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka Somaliland gobolada waqooyi ee Soomaaliya taariikhdu markay ahayd shalay 1 bisha January 2024 magaalada Addis Ababa sida uu qabo haddaba dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xeerarka dalkeena iyo xeerarka caalamiga ah Somaliland waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya labo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aragtaa tallaabadani mid gardarro ah oo halis gelinaysa daris wanaagga nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daala dhacay dhibaatooyin kala duwan waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madax banaanida gobonnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya saddex waxa lagu sheegay heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan ma ahan mid ay aqbalayso dowladda federaalka ee Soomaaliya mana lahan saldhig sharciyeed afar dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay dowladda Itoobiya uga digaysaa isku day kasta oo xadgudub ku ah gobonnimada madax banaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxayna dowladda Soomaaliya xaq u leedahay in ay kaga jawaabto tallaabada guracan ee ay qaaday dowladda Itoobiya wadda kasta oo sharci ah shan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ficilka Itoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobonnimada iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dowladda Soomaaliyeed oo haddaba ku tiirsan qodobka lixaad dowladda Soomaaliyeed oo ku tiirsan awoodda shacabkeeda waxay diyaar u tahay waajibna ka saaran yahay difaaca ilaalinta iyo dhowrista gobonnimada sharafka iyo midnimada dhuleed iyo midda bulsho ee dalkeeda toddobo dowladda Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ururka midowga Afrika ururka iskaashiga islaamka ururka jaamacadda carabta ururka IGAD iyo saaxiibada kale ee daneeya xasiloonida gobolka iyo caalamkaba iyagoo ilaalinaya xeerarkaasi ay ku dhisan yihiin gudanayana waajibaadka loo aasaasay in ay garab istaagaan xaqa dowladda Soomaaliya ee ilaalinta midnimadeeda dhuleed kuna cadaadiyaan dowladda Itoobiya in ay ku soo noqoto xayndaabka shuruucda caalamiga ah sideed dowladda Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrikaba in ay qabtaan kulamo degdeg ah oo looga arinsanayo xadgudubka iyo faragelinta Itoobiya ee ka dhanka ah madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee dalkeena Soomaaliya qodobka sagaalaad iyadoo haddaba arrintan laga jawaabayo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay la tashi degdeg ah ugu yeeraysaa safiirkeeda dalka Itoobiya ugu dambeyntii xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay soo saaraysaa amarada munaasibka ku ah ilaalinta qarannimadeeda iyo ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah dhammaanna hay'adaha dowladda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedna waxaa la farayaa in ay u istaagaan fulintooda wabilaahi tawfiiq aad iyo aad baad mahadsantihiin talada ninka biyaha inta la saaro